cabdikariin xuseen guuleed oo ah kusimaha xilka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka iyo saraakiil ka tirsan dowladda ayaa maanta waxa ay booqasho ku tageen isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho oo ay jiifaan qaar ka mid ah dhaawacyadii ka dhashay qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee xalay xarakada al-shabaab ay ku weerareen hotelka Jazeera oo ku yaala meel u dhow garoonka diyaaradaha ee aadan cad ee magaalada Muqdisho madaxa caafimaadka isbitaalka Madiina Dr. Duniya Maxamed Cali ayaa wasiirka ugu warbixisay xaaladda caafimaad dadkii dhaawacyada ahaa ee la gaarsiiyay isbitaalka Madiina waxaana ay sheegtay in 4 qof ay geeriyoodeen tiro ka badan 30 kalena ay dhaawacmeen iyadoo inta raacisay in ay la tacaaliyaan sidii ay u baxnaanin lahaayeen dadkaasi dhaawacyada kala duwan qaba ee jiifa isbitaalka Madiina dhiigag in aan weydiino dad badan si wanaag hadda dhiigagan aan gacanta ku hayn dhiigag aadka ugu baahnay sida ee plasco kale dhiiga hadda wasiirka noo shubay iyo maaragtay mas'uuliyiin kale oo dhiigag badan ay shubeen staafka way shubeen wasiirada staafyada dhammaan dhiig way wada shubeen uga mahadcelinayna dhiigaas oo aad aan dhibaato ugu qabno dhaawacyada waxaan loo keenay 31 dhaawacyo dhimashada 4 qofood oo iyagu meed ala keenay hal qofna qaliinka markii saalada qaliinka ay tasdiiqisay kusimaha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka cabdikariin xuseen guuleed oo isna ku hadlay gudaha isbitaalka Madiina ayaa waxa uu sheegay in qaraxyada aysan u dhicin sidii loogu talagalay waxaana uu dadka shacabka ay ugu baaqay inay la shaqeeyaan hay'adaha ammaanka ee dawladda waxa weerar argagixis ah kooxda al-shabaab ku soo qaaday hotel kamid hotel magaalada Muqdisho oo hotelka Jazeera alxamdulillah weerarkaasi runtii waa la fashiliyay waxaana fashiliyay hay'adaha amniga talagalka weerarku wuxuu ahaa inay gudaha hotelka galaan oo dadka hotelka degan martida ah ama afduub qabsadaan ama ay laayaan alxamdulillah hay'adaha amniga ayaa arintaa fashiliyay inta aan ognahay dhimashadu waa 4 qof dhaawacna waa ilaa 31 qof oo qaar badan oo kamid ah dhaawacoodu u ahaa kuwa iska sahlan qaar kamid ah runtii xaaladooda aad u darneyd aniga iyo wasiirka gaashaandhigga iyo mas'uuliyiin kale ayaa soo booqanay runtii dhaawacyo xaaladooda aad iyo aad u liidata ayaan aragnay inay u baahan yihiin in qaar badan oo kamid ah dhiig la siiyo isbitaalka aanu amaanaya intii kalankooda waxay dhiig bangi ugu jiray way runtii way dhameystireen intanadii suurtagalka ahaydna dhiig waa bixinay waxaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed u baaqayaa in maadaama isbitaalku uu kaydkii dhiiggiisa uu bixiyay inay maaragtay dhiig degdeg ah ay la soo gaaraan dhiig ay ku deeqaan qaraxyadan ismiidaaminta ahaa ee qasaaraha kala duwan dhaliyay ayaa waxaa sheegtay xarakada al-shabaab iyadoo afayeenka al-shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage Cali Dheere uu sheegay in iyagu ay bartilmaameedsadeen isagoona inta raaciyay in 40 qof oo isugu jirta saraakiil ciidan iyo niman cadaan ah ay ku dhinteen weerarkii xalay ay ka fuliyeen hotelka Jazeera ee magaalada Muqdisho Ahmed Xasan Ibrahim Samsad Muqdisho